wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa sheegay in wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka Iran ee 2015 la filayay inay dib u milaabmaan, laakiin wuxuu intaa ku daray in cabsi uu ka qabo in dawladda Iran ay qaadacdo wadahadaladan. Qodobada dooda ee dib loogu eegayo isla markaana dhiirigelinaya in la soo nooleeyo wadahadalkii nukliyeerka Iran ayaa noqday kuwo sii daba dheeraaday sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiisku, isagoo dawladda Iran ku eedeeyay inay doonayso in waqtiga ay ku lumiso sida uu dhigayo heshiiska Iran iyo 6 quwadood ee 2015. Iran waxa qaaday tallaabooyin ay ku xakameynayso barnaamijkeeda nukliyeerka si ay u fududaato in laga qaado cunaqabataynta uu saaray Mareykanka iyo Midowga Yurub, laakiin madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump ayaa 2018 laalay heshiiskan isagoo cunaqabataynada ku soo rogay dalka Iran, iyadoo oo warbaahinta Iran iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku ay sheegeen wadahadalada la filayay inay dib u bilaabmaan Khamiista ay hakad galeen. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inaan weli la cayimin taariikhda dhabta ah ee wadahadalkan uu dhici doono. wadahadalka dadban ee Mareykanka iyo Iran oo uga socday magaalada Vienna ayaa ujeedadu ahayd sidii labada dhinac loogu buurin lahaa inay dib u bilaabaan ku dhaqanka heshiiska. Wadahadaladan ayaa u dhaxeeyay labada dhinac iyada oo loo marayo hab diblomaasiyadeed kadib markii dawladda Iran ay diiday inay wada hadal toos ah la yeelato Mareykanka. Wadahadaladan ayaa joogsaday Jimcihii iyagoo saraakiisha Yurub iyo Mareykankuna ay muujiyeen in aanay ku qanacsanayn dalabaadka ballaaran ee dawladda cusub ee Iran. Sarkaal sare oo Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Iran aanay wax tanaasulaad ka samaynin wadahadalka wareegii hore. Dhinac walba waxa uu ku adkeysanayaa mowqifkiisa hore iyada oo aan wax horumar laga gaarin wadahadaladan. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka oo ka mid ah 6 quwadood ee waaweyn ee heshiiska nukliyeerku, kuwaas oo ay muhiiliyaan Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalku, ay talaadadii yeesheen dooda Iran ayaa muujisa inaanay dhab ka ahayn miiska wadaxaajood kooxdan 5 dawladood ee golaha ammaanka iyo Jarmalka oo u muuqda inay yihiin koox ay ka go'an tahay inay sii adkaato xaaladani. Hadal uu jeediyay Isniintii agaasimaha CIA Mareykanka ayaa ku sheegay in hay'addu aanay rumaysnayn in hogaamiyaasha dalka Iran ay go'aansadeen in horumar laga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran.